bismillaah axmed aad u mahadsantahay. Arrintan waxay markhaati u tahay xeer xumada iyo halbeeg la'aanta siyaasadda Soomaalida. Dabcan dhinac marka laga fiiriyo in marmar in la isruxruxo meesha waa ku jirta, laakiin in xaalku aad u adkaado xilli baarlamaanka arrimo badan oo masiiri oo qadiyadeed ay taagan yihiin in la isku noqdaa weliba la isfarmuuqa arrin wanaagsan maahan. gudoomiyaha baarlamaanka mudane Jawaari waa markii koowaad ee mooshin laga keeno. muxuu salka ku hayaa mooshinkani? Axmed, qodobada markaa fiirisid waa qodobo aad u culculus ilaa markhaati cad la keenana aan la iska qori karin. Arrinta xiisaha leh waxaa weeyaan in xataa Jawaari laftigiisa marka hoos loo wareysto uu aad u farmuuqayo golaha guddiga fulinta ee dowladda, xafiiska fulinta dowladda, gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha. waxaad moodaa in ay tahay nooc ka mida istiraatiijiyada dowladaha qaarkood xukuumadihii lasoo dhaafay markaad fiirisid qaab dhaqameedkoodii siyaasadeed in la rabo in baarlamaanka lagu mashquuliyo mooshinka noocaana intii uu dowladda ku mashquuli lahaa. Marka waxaad moodaa degdega uu ku yimid iyo la tashi la'aantiisa inaan culays weynu ka jirin Soomaalida dhexdeeda, laakiin ay tahay madaxda sarsare ee dalka is haysa. caalamku sidee u arki karaa mooshinkan cusub iyadoo dhowaanahan la dareemayay xasilooni dhanka siyaasadda ah? uma malaynayo in ay jirto cid ku farxi karta aan ka ahayn dadka aan rabin in Soomaalida ay horumar baahsan ama ballaaran ay ka gaarto dhinaca siyaasadda, gaar ahaan xilligan kala guurka aadka muhiimka ee aan ku jirno. waxaan hubaa in qaramada midoobay, midowga Afrika, urur goboleedada iyo dhammaan dadka arrimaha Soomaaliya aadka ugu kuurgalay indha-indheeya ay yaaban yihiin, fasirina la yihiin, tarjumina la yihiin waxa socda. madaxweynuhu muxuu uga aamusan yahay arrimahan socda? Axmed, hal cabaaraba saad ula socotid, madaxweynuhu caadiyan wax walba kama hadlo. waxa markay qadiyad tagto oo xilliga ugu dambeeya baad moodaa inuu si uun usoo baraarugo ka hadlo, maadaama marka aanan ku aqoonin kuwa arrinkan ka culusba inaanu ka hadlin. waxaan u malaynaa looga fadhin inuu ka hadlo ilaa faraha la isla galo, farfiiqana laga yaabo inuu xafiiskiisa tago inaanu hadlin bay u badnaan doontaa weli. Dr. Ibrahim xalay sidaad la socotay Jawaari shir jaraa'id ayuu qabtay. khudbadiisii maxaa kaaga baxay? waan fiirsanayay iyadoo toos ah. waxay ahayd khudbad xigmad leh, qiimo leh, qaaya leh. waxay ahayd mid haybaysan. waxay ahayd mid Jawaari uu ku tilmaamay sarreynta sharciga, walow uu wax un farmuuqay oo si looga habboonaa inuu la rabay inuu wax bal yara dhareeyo, haddana aad moodid inuu sharciga xoogga saarayo, isbari yeelay, hogaamiyaasha Soomaalidana ugu baaqay, gaar ahaanna xildhibaanada aqalka hoose golaha shacabka ugu baaqay inay qadiyadda u hiiliyaan. isagana uu isbari yeelay oo yiri ma hogaamin doono soo jeedin aniga la iga soo horjeedo. marka waxaad moodaa khudbad nooceed inaanay waayadanna soo hormarin, hay-adnimo iyo dastuurina uu ka muuqday. adiga oo daraskaaga maxay ku dambayn doonaan arrimahan moshinku? sidoo kale maxay u dhimi karaan howlihii baarlamaanka hor yaalay oo ay ugu weyneyd dhamaystirka dastuurka qabyada ah? waxaa muuqata 3 suurtagalnimo oo aan jeclaan lahaa midkoodna insha Allah inaanu nagu dhicin. waxaa suurtagala in mooshinka intuu shaqeeyo gudoomiye Jawaari la bedelay, gudoomiye cusubna aan helno. suurtagalnimada labaad waxaa weeyaan in mooshinka uu shaqayn waayo, sidii uu jabay oo kale uu codkii kalsoonida Jawaari mar kale helo, mooshinka ku xigana uu noqdo mid ra'iisul wasaare Khayre looga soo horjeeday, sidaasna uu ku baxo. waxaa kale oo suurtagala inaan galno shaqaaqad cusub oo dastuuri iyo siyaasi isugu jirta, markaasna qadiyadeennii ay baylah u noqoto in beesha caalamka ayna farageliyaan, sidiina la ku yaqiinay kumeel gaaradiina ayna heshiisiyaan. mana aha saddexdooda mid fiican.